saxaafadda ku saabsan go'aamadii ka soo baxay ergooyinka shirka Khaatumo maanta qabsoomay. Ergooyinka shirka Khaatumo oo saaka waxay dib u bilaabeen doodii qodobadii maalmahanba ay ka doodayeen ajendaha shirka Khaatumo. Qodobada maanta loo codeeyayna waxaa ka mid ah oo ugu horeeya in magac loo bixiyo maamulka cusub ee laga yeelayo gobolada Sool Sanaag Cayn. kadib markay codeeyeen ergooyinku waxay qodobkii koowaad ku ansixiyeen oo la isku raacay in ismaamulka cusub ee gobolada Sool Sanaag Cayn loo bixiyo magaca Khaatumo State of Somalia. qodobka labaad ee loo codeeyay wuxuu ahaa dhismaha haykalka guud ee maamulka cusub ee Khaatumo, waxaana la isku raacay inuu ka koobnaado sida tan: 1 golaha sare ee dhaqanka, 2 golaha wakiilada, 3 golaha madaxtooyada oo ka koobnaan doona 3 xubnood oo guddoomiyenimadu ay noqon doonto meerto ama wareegto, 4 golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 6 xubnood, 5 golaha garsoorka, 6 iyo hay-ado dastuuri ah oo madax bannaan sida hay-adda hantidhawrka. waxaa kaloo loo codeeyay inay sii jiraan guddidii fulinta ama group 6 laguna kordhiyo 3 xubnood oo cusub, kuwaasoo noqon doona 9 xubnood oo howlaha xiriirka dibadda iyo xiriirka caalamkaba ka shaqayn doona. ergooyinka codeeyay waxay dhammaayeen 346 ergo, 64 ergo, waxaana u dhacay codkii sida tan: 341 ergo waxay ansixiyeen oo codeeyeen in go'aamada la qaato. waxaa diiday 6 xubnood oo ka codeeyay, waxaana ka aamusay 7 xubnood. sidaa awgeed waxaa sidaa ku ansaxay dhammaan qodobadii ergooyinku maanta la falanqeeyay. go'aamadana waa la isla qaatay, shirkuna waa waasixiyay. haddana waxaa idinku wareejinayaa odayaashii guddida fulinta oo dhinacayda midig fadhiya.